بسم الله الرحمن الرحيم وصباح نما إسنينا سقال يتوبنك بشا مي سنة كالباكن لباتن يشن أو كوباغن كوبيا لباتنك بشا دولغاد سنة كون أفر بقول أفرتن يلح تاريخ الهجرية كسو دوادا قضبضا برامجك ساكي أنا دي كوبا هيننا وحاكم xiisadda nuclearka Iran oo markale cirka isku shareertay kadib markii hadallo adag ay hawada isku marayeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulada Washington iyo Tehran haddaba maxaa la isku hayaa wararkii ugu dambeeyay ayaan idin faahfaahin doonaa Hamas oo war culus ka soo saartay wararka Israa'iil iyo Mareykanku ay faafiyeen ee la xiriira arrimaha heshiiska xabad joojinta iyo isdhaafsiga maxaabiista wararkii ugu dambeeyay ee Gaza ayaan sidoo kale idin haynaa iyo xaaladdu sida ay tahay saakay ama ay ku waabariysatay gargaarkii Israa'iil ay u fasaxday Gaza oo faahfaahin dheeraada ay ka soo baxayso iyadoo Netanyahuna dhaleecayn xooggan uu kala kulmayo mucaaradka iyo xitaa gurihiisa wasiirada arrimo la xiriira dagaalka Gaza madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden oo laga helay cudurka kansarka oo weliba heerkiisu u yahay mid halis ah Yurub oo markii looga dheereeyay gantaalada guuxooda ka dheereeya iyo kuwa hurdada fog hadda hurdada ka soo kacday iyadoo Jarmalka iyo Britain ay ku heshiiyeen samaynta gantaal casri ah oo gaari kara ilaa iyo 2000 oo kiiloomitir dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaan hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa saaka waxaynu ku bilaabaynaa xiisadda nuclearka ee Iran inkastoo labada wadan wada hadallo ay u socdeen waa Mareykanka iyo Iran kuwaasi oo ku aadanaa sidii heshiis looga gaari lahaa xiisadda ka dhalatay nuclearka ee Iran haddana saacadaha la soo dhaafay waxa la sheegayaa labada dhinac inay hawada isku marayaan hadallo adag oo xanaf leh xaaladda ayaa waxaa ka sii daray dhowr maalmood ka hor markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku andacooday inuusan meesha ka saarayn tilaabo military oo ka dhan ah Iran haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee warbaahinta labada dhinac ay wax ka qoreen ergeyga Mareykanka ee bariga dhexe Stephen Witkoff ayaa ku andacooday in Washington aysan marnaba ogolaan doonin in Tehran ay yeelato xitaa boqolkiiba hal awood ay ku kobciso uraniumka waraysi uu siiyay telefishinka ABC News ee laga leeyahay Mareykanka ayaa Witkoff waxa uu yiri waxaynu leenahay xariiq cas oo cad taasi oo ah bacriminta uraniumka ma ogolaan doono in Iran ay yeelato xitaa boqolkiiba hal awoodda kobcinta uraniumka waxaana arrintaani ay ku salaysan tahay buu yiri mowqifka iyaga adag heshiis kasta oo aysan ku jirin joojinta awoodda kobcinta annagu ma aqbali doono sababtoo ah kobcintu waxay suurtagal ka dhigi kartaa samaynta hubka nuclearka Witkoff oo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri waxa jira siyaabo badan oo Mareykanku ku gaari karo ujeedooyinkiisa marka ay timaado wada hadallada Iran waxaan aaminsanahay in toddobaadyada soo socda aynu kulan ku yeelan doono qaaradda Yurub waa toddobaadka soo socda waxaan rajaynaynaa in natiijooyin wax ku ool ah laga gaari karo wada hadallada dhinaca kale waxa isla arrintan si adag uga jawaabay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iran Abbas Araqji waxa uu sheegay in kobcintu ay sii soconayso waxaana uu yiri hadalladaasi ku aadan kobcinta uraniumka waa kuwa ka fog xaqiiqda wada hadallada isagoo la hadlay telefishinka dawladda Iran Araqji waxa uu yiri haddii ay daleynayaan in la hubiyo in Iran aysan samaysan doonin hub nuclear waxaan diyaar u nahay in arrintaasi lala kaashado haddii ay leeyihiin dalabyo aan suurtagal ahayn waa wax iska caadi ah in aan la fulin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa 16kii bishan May waxa ku dhawaaqay in Mareykanku uu u diray Iran tala soo jeedin qoraal ah oo lagu xalinayo xiisadda la xiriirta barnaamijka nuclearka ee Iran wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa war ay horay u soo saartay waxay ku sheegtay in Tehran ay diyaar u tahay haddii cunaqabataynta laga qaadayo inay la fariisato Mareykanka si ay uga wada hadlaan xadidaadda heerka iyo mugga kobcinta uraniumka balse marnaba aysan ogolaan doonin in gebi ahaanba la joojiyo barnaamijkeeda nuclearka maadaama ay xaq u leedahay marka loo eego isticmaalka tamarta nuclearka laga dhaliyo si nabad ah taasi oo ku salaysan heshiiska ka hortagga faafinta hubka nuclearka ee magaciisa loo soo gaabiyo NPT kaas oo dalal badan ay saxiixeen ayna ku dhaqmaan heshiiskaasi Iran
waxay ka mid ahayd dalalkii ugu horreeyey ee saxiixay maraykanka iyo iiraan oo ay dhexaadinaysa dowladda Cumaan waxay yeesheen 4 wareeg oo wadahadalaha si loo xalilo khilaafka ku saabsan barnaamijka nuclearka ee Iiraan kulankii ugu horreeyay waxa uu dhacay 12 bishii Abriil waxaana uu ka dhacay magaalada Masqat ee dalkaasi Cumaan kii labaad 19 Abriil ayuu ka dhacay magaalada Rome halka kulmadii saddexaad iyo afraad ay ka kala dhaceen 26 Abriil iyo 11 May magaalada Masqat ee dalkaasi Cumaan lama sheegin wadanka ay ka dhici doonaan wadahadaladan soo socda ee lagu ballamay toddobaadka soo socda waxaan kaloo la ogeyn arrintan sida ay u saameyn karto gaar ahaan wadahadaladan imika soo baxaya qorshaha lagu doonayo in mar kale wareegii shanaad wadahadalo la yeesho waanu arki doonaa wixii arrimahaasi ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo imikana Washington madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa lagu soo waramayaa in laga helay cudur halis ah oo la xiriira kansarka gaar ahaan cudurka kansarka qanjirka ragga ee afka qalaad loo yaqaano prostate sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa gaarka ah habeennimadii xalay ogaanshaha cudurka ayaa yimid kadib baaritaan caafimaad oo joogto ah iyadoo dhaqaatiirtu ay heleen buray yar oo ku taal qanjirka ragga taasi oo keentay baaritaan dheeraad ah baaritaanada caafimaad ayaa muujiyay in kansarka uu yahay mid aad u sarreeya oo halis ah laguna qiimeeyay heerka shanaad qaybtiisa 9aad taasi oo muujinaysa cudurka heerkiisa inuu sarreeyo waxaana la sheegay in kansarka uu ku faafay lafaha ha yeeshee uu yahay nooc lagu daaweyn karo daawooyinka hormoonada sameeya sida lagu sheegay war-saxaafadeedyo kala duwan oo arrintan la xiriira waa hagaag dunida tartan weyn oo dhanka hubka ayaa ka socda sanooyinkii ugu dambeeyana waxaa si weyn u horumaraya wadamada qaarkood gaar ahaan marka ay timaado gantaalada guuxooda ka dheereeya waxaana la yaab noqotay oo afkala la qabsaday kadib markii xogaga xuutiyiinta la sheegay inay samaysteen gantaalada hypersoniga ama guuxooda ka dheereeya sidoo kale Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa ka mid ah wadamada sida weyn horumarka uga sameeyay wadamada Yurub ayaa waxa la sheegay inay ka dambeeyaan marka la barbardhigo wadamada kale ee xifaaltamaan sida Shiinaha iyo Ruushka oo iyagu mar horeba gantaalo guuxooda ka dheereeya in ka badan 10 mar tijaabiyay imika Yurub hurdad ayay ka soo kacaysa oo waxay leedahay anna waa ikan Jarmalka iyo Britain dhowr wadan oo kale oo reer Yurub ayaa ku heshiiyay soo saarista gantaal casri ah oo gaari kara ilaa iyo 2000 oo kiiloomitir warbixin amuurahan la xiriirta waxaa eegaya wariyahayaga Yaxya Ciise Jarmalka iyo Britain ayaa qorsheynaya inay soo saaraan nidaam gantaalo cusub oo weerarada loo adeegsado oo masaafadiisu ay gaari karto in ka badan 2000 oo kiiloomitir taas oo ah tallaabadii ugu horeysay ee lagu dhaqan geliyay heshiiskooda difaaca si ay uga hortagaan hanjabaadda Ruushka wasiirka difaaca Britain John Healey ayaa sheegay in isaga iyo dhigiisa Jarmalka Boris Pistorius ay ku heshiiyeen kulankoodii ka dhacay magaalada Berlin inay bilaabaan wada shaqeyn ku saabsan horumarinta awoodda cusub ee Yurub ay yeelanayso oo lagu beegsanayo bartilmaameedyada fog masaafo ka badan 2000 oo kiiloomitir masaafadani waa mid aad uga dheertan ay gaari karaan gantaalada Faransiiska iyo Britain ay wadajirka u sameeyaan ee loo yaqaano Storm Shadow mashruucan oo aan lahayn waqti cayiman oo la dhameynayo ayaa ah hirgelintii ugu horeysay ee heshiiska Trinity House oo ah kii ugu horeeyay ee noociisa ah oo labada dal ay kala saxiixdaan bishii Oktoobar 2024 wasiirka gaashaandhigga Jarmalka ayaa sheegay in tallaabadani ay ka mid tahay habka Yurub ee ku wajahayso weerarada fog mashruuca hubka Yurub ee weerarada fog oo ay bilaabeen Faransiiska Jarmalka Talyaaniga iyo Poland ayaa ujeedadiisu tahay in la hormariyo lana soo saaro hub weerar oo meel dheer gaari kara iyadoo oo ay sii kordhiyaan xiisadaha ay kala kulmayaan Ruushka Pistorius waxa uu xusay in wadamo kale ay ku biiri karaan hindisahani isla markaana ay ka faa'iideysan karaan iskaashiga heshiiska Trinity House waxa uu dhigayaa in la kordhiyo tababarada ay sida wadajirka u sameynayaan ciidamada Jarmalka iyo Britain si loo xoojiyo difaaca xadka bari ee NATO sidoo kale heshiisku waxa uu dhigayaa in diyaaradda B8 ee Jarmalka laga howlgeliyo saldhigyo ku yaala Scotland si ay uga qayb qaataan ilaalinta NATO arintaas darteed Pistorius waxa uu sheegay in Jarmalku uu iibsan doono gantaalada quusadilaaga ah ee Britain ee loo yaqaano Stingray daawadayaal marna waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay ee Gaza iyo waliba qorshaha la sheegayo in Israa'iil ku ogolaatay gargaarka in uu u gudbo marinka Gaza
iyo macluumaad arrimahaasi la xiriira gaar ahaan xamaas oo iyana soo saartay war culus oo la xiriira wararka ay faafiyeen Israa'iil iyo Mareykanka ee la xiriira arrimaha xabad joojinta iyo isdhaafsiga maxaabiista intaan u gudbin wararkaasi iyo qodobo kale aynu ku hakanno qadar xayeysiina waa hagaag saacadihii la soo dhaafay warbaahinta Israa'iil iyo tan Mareykanku waxay faafinayeen warar la xiriira in xamaas ay aqbashay in la soo daayo 9 ka mid ah maxaabiista lagu haysto Mareykanka Gaza isla markaasna ay ku bedelato 2 bilood oo dagaalka la joojinayo haddaba ururka xamaas ayaa war adag arrintaasi ka soo saaray Sami Abu Zuhri oo ah madaxa waaxda siyaasadda ee dhaqaaqa iska caabinta xamaas ee dibadda ayaa ku eedeeyay maamulka Israa'iil in isku dayayo in uu jahwareer ka abuuro goobta dagaalka isagoo adeegsanaya warar been abuura si uu cadaadis ugu saaro muqaawamada una marsiyo dambiyada uu ka wado dadka reer Gaza Abu Zuhri oo la hadlay telefishinka Al-Aqsa ee hoos yimaada dhaqaaqa xamaas ayaa beeniyay warar la faafiyay oo sheegaya in xamaas ay ogolaatay inay sii dayso 9 maxbuus oo Israa'iiliin ah bedelkeedina lagu bedesho xabad joojin 2 bilood ah annaga hormuud u ah in aan diyaar u nahay heshiis waxaana tusaale u ah inaan si mootadawacnimaha u sii daynay askariga Aidan Al-Iskandar si aan u abuurno jawi wadahadal balse maamulka Mareykanku ma aysan qadarin talaabadeena ayuu yiri Abu Zuhri wuxuu si adag u sheegay in xamaas aysan marnaba wareejin doonin maxaabiista gacanta ugu jira aynu ku wareejinin maamulka Israa'iil ilaa iyo inta uu wado weerarka joogtada ka wada Mareykanka Gaza wuxuu tilmaamay in xamaas ay diyaar u tahay in hal mar la sii daayo maxaabiista haddii maamulka Israa'iil uu ballan qaado in uu joojiyo dagaalka iyadoo ay jiraan damaanad qaadi caalami ah Abu Zuhri wuxuu carabka ku adkeeyay in muqaamadu wali si fiican u shaqaynayso isla markaasna aysan jirin wax walwala oo ku saabsan mustaqbalkeeda wuxuu xusay in hawlgallada iska caabintu ay sii socdaan inkastoo uu jiro farqi weyn oo u dhaxeeya qalabka ay haystaan iyo kuwa ciidamada Israa'iil dhinaca kale waxa la sheegayaa in Israa'iil duqeymaha ay sii wado iyadoo maantana ay tahay maalintii 63aad wararku waxay sheegayaan duqeymaha badankooda inay ka socdaan dhanka waqooyiga Mareykanka Gaza cisbitaalka Indonesia ayaa Israa'iil waxa la sheegayaa in xalay oo idil ay duqeynaysay dhinaca kale bartamaha Mareykanka Gaza ayaa sidoo kale laga soo warinayaa duqeymo adag gudaha Israa'iil Netanyahu inkastoo uu ogolaaday in Mareykanka Gaza dagaalka la ballaariyo haddana xogaga mucaaradka ayaa si weyn uga soo horjeeda Benny Gantz oo kamid ah hogaamiyaasha mucaaradka ayaa si kulul u dhaleelay ra'iisul wasaaraha Israa'iil isagoo ku eedeeyay in uu doonayo in uu ka baxsado mas'uuliyadda go'aamada la xiriira ammaanka qaranka sida hadalku u yiri isla markaasna uu ku gambado ciidamada iyo hay'adaha amniga si uu u ilaaliyo yiri kalsoonida isbahaysigiisa dhanka siyaasadda Netanyahu mar kale wuxuu ku gambanayaa ciidanka iyo hay'adaha ammaanka markan oo wajahayo go'aamo wiiqaya isbahaysiga xukunkiisa ayuu yiri Gantz markuu guulaysto wuxuu sheegtaa inuu isaga uu bixiyay amarka laakiin markuu xaqaldamaan wuxuu leeyahay ciidamada ayaa sidaas ku taliyay ayuu yiri Benny Gantz oo horey u soo noqday wasiirka difaaca ayaa sheegay in Israa'iil ay u baahan tahay hoggaan daacad ah oo geesi ah si hadalka u dhigay oo la hadla shacabka xitaa marka ay wax adag yihiin Israa'iil waxay u baahan tahay buu yiri hoggaan ka duwan midkan kaasi oo la hadli kara shacabka runta u sheegi kara marka xaaladdu ay adkaato ayuu hadalkiisa ku daray hadalkan ayaa waxa uu imaanaya xilli ay soo tarayaan khilaafaadka siyaasadeed ee gudaha Israa'iil ka jira gaar ahaan kan la xiriira amniga iyo isbeddelka dhanka garsoorka waa hagaag xalay waxaan idin soo gudbinay in Israa'iil ay ogolaatay in Mareykanka Gaza gargaarka uu gudbo markii ugu horeysay muddo 3 bilood haddaba waxaa leeyahay iminka waxaa la wadaa qorshe Israa'iil ay ku doonayso in gargaarka ay ku gaarsiiso Mareykanka Gaza una ogolaato cadaadis weyn ayaa saaran Mareykanka waxa la leeyahay cadaadiska xooggiisa oo ka yimid laakiin wadamo badan reer Yurub ayaa furka tuurtay kadib markii dadkooda ay ku soo banaan baxeen haddaba waxaa soo baxaya war sheegaya in Israa'iil ay ku tilmaamayso gargaarkan inuu yahay mid ku meel gaar ah oo Mareykanka Gaza loo gudbin doono muddo 7 ah sida lagu sheegay warbixin uu soo xigtay wargeyska The Jerusalem Post ee ka soo baxa Israa'iil go'aankan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu doonayo in lagu yareeyo dhibaatada shacabka sida iyo in la dhameystiro xarumaha qaybinta ee loogu talagalay maamulka gargaarka sarkaal u hadlay Israa'iil ayaa waxa uu sheegay inta badan xarumaha qaybinta gargaarka in la dhisi doono lagana sameyn doono koonfurta Gaza iyadoo la hoosgeyn doono kormeerka ciidamada Israa'iil iyo shirkado Mareykan ah tani waxay ujeedadu tahay buu yiri in gargaarka la gaarsiiyo dadka rayidka iyadoo laga ilaalinayo dhanka ammaanka
warbaahinta Israa'iil gaar ahaan telefishinka kanaal 14 oo aad ugu dhow xukuumadda Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in go'aanka lagu ogolaanayo gargaarka uu dhaliyay dood kulul oo xalay xubnaha golaha wasiirada ka dhex dhacday oo furka la isku tuurtay. qaar ka mid ah golaha wasiirada ayaa waxay sheegeen inay ka soo horjeedaan arrintaasi oo miiska garaacay, taasi oo muujinaysa xiisadda dhanka siyaasadda ee ka jirta gudaha Israa'iil gaar ahaan arrimaha bini'aadantinimada. isla war arrimaha la xiriira wasiirka amniga qaranka Israa'iil Itamar Ben-Gvir ayaa si kulul u cambaareeyay go'aanka xukuumadda ee ah in gargaarka bini'aadantinimo loo ogolaado marinka Gaza, isagoo ku tilmaamay wasi hadalka u dhigaya qalad weyn oo u adeegaya danaha ururka Xamaas xilli maxaabiista Israa'iil ay ku dhiban yihiin gudaha godadka dhulka hoostiisa, ayuu yiri. Ben-Gvir waxa uu ku sheegay waraysi uu siiyey warbaahinta Israa'iil in gargaarka bini'aadantinimo ee la gelinayo Gaza uu noqonayo mid u adeegaya Xamaas, waxaana markaasi uu sheegay intaasi ay tahay qalad weyn, isagoo sidoo kale tilmaamay intaasi ay muujin doonto kala qaybsanaan ka dhex taagan madaxda Israa'iil gaar ahaan arrinka ku saabsan sida loo wajahayo dhibaatada dhanka bini'aadantinimada ka jirta Gaza iyo istiraatiijiyadda loola macaamilayo Xamaas. waa sida hadalka uu yiri. war kale oo gudaha Israa'iil la xiriira wararka ka imaanaya wargeyska lagu magacaabo Axios ee laga leeyahay Mareykanka ayaa waxa uu ka soo xigtay sarkaal Israa'iili ah oo sheegay in gargaarka loo diray marinka Gaza uu koobnaan doono cunto, daawooyin muhiim ah oo lagu talagalay shicibka. gargaarka loo diri doono Gaza ayaa waxaa ka mid noqonaya cunto ay ka mid yihiin bur loo isticmaali doono dubista roodhiga oo ay maamuli doonaan hay'ado caalami ah. waxaa sidoo kale ka mid ah daawooyin loo gudbinayo cusbitaalada gudaha Gaza ku yaal. sarkaal ka tirsan hay'adaha gargaarka ayaa waxa uu sheegay in cuntada loo gudbin doono barnaamijka cuntada adduunka ee WFP iyo sidoo kale urur ka shaqeeya arrimaha cunto karinta iyo cuntada bisil oo dadka loo qaybiyo. urur kale oo samafal ayaa qayb ka noqon doona ayaa la leeyahay. warkan wuxuu ka duwan yahay warka Israa'iil sheegaysay ee ahaa shirkad Mareykan inay qaybinayso gargaarka ciidanka Israa'iil dusha ay kala socon doonaan, laakiin waxa la leeyahay arrintan waxay ku timid culays balaaran oo Israa'iil la saarayo. xalay waxaan sidoo kale idin soo gudbinay war weyn oo sheegaya xuutigu inay laba laabin doonaan weeraradooda. haddaba waxaa leeyahay xuutigu howlgalla culus ayay wadaan, waxayna ballan qaadeen inay kordhinayaan weerarada ay wadaan, isla markaasna ilaa iyo inta Israa'iil ay xoojinayso duqaynta iyo weerarada ayaguna ay xoojin doonaan weerarada iyo duqaymaha ay ku hayaan Israa'iil. kaliya waxay yiraahdeen waxaan ku joojin karnaa oo kaliya haddii Gaza dagaalka laga joojiyo. saacadihii la soo dhaafay weerar gantaalaha ayay ku qaadeen gudaha Israa'iil iyagoo adeegsanaya gantaalada guuxooda ka dheereeya ee hypersonic. muddo 24 saac waxaa la sheegay xuutiga 2 mar inay weerareen gudaha Israa'iil, waxaana wacad ay ku mareen garoonka diyaaradaha Ben Gurion in gebi ahaanba ay xiri doonaan, iyagoo u digay shirkadaha diyaaradaha iyo sidoo kale dadweynaha gaar ahaan ajaanibta oo ay yiraahdeen garoonkaas iskaga fogaada. xuutigana waxaa leeyahay gantaaladoodii bay rakabteen Mareykanka markay la heshiiyeen. Israa'iil waxaa leeyahay xaaladda ku adag. sababta maxay tahay? Israa'iil waxay sheegtay in halkii weerar xuutiga lagu qaadayo uu u baahan yahay 1 toddobaad in la diyaariyo. marka waxaa leeyahay xaaladdu waa adkaanaysa. xuutigana hadda ayayba waxaa leeyahay soo laba kacleeyeen sida wararka ugu dambeeya ay sheegayaan, oo waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq gudaha waddanka Yaman sida wararku ay tilmaamayaan. Netanyahu xasana xalay ugu hadlay aad buu wuxuu u sheegay in xuutiga weerarada ay wadaan ay noqon doonaan kuwa ay ka jawaabaan, laakiin wuxuu qiray saameyn inay ku yeelatay Israa'iil weerarada. wuxuu yiri yaanin loobin cidda ka dambaysa xuutiga waa Iiraan oo sida hadalka u dhigay hubaynaysa xuutiyiinta. xaaladdu faraha ayay ka sii baxaysa ayaa la leeyahay, gaar ahaan xuutiyiinta oo laga cabsi qabo in ay kordhiyaan weerarada. waxaan leeyahay xuutigu hadda ka hor waxay ku guuleysteen inay xiraan dekadda Rashrash oo Falastiiniyiinta dhulka laga qabsaday ah, laakiin imika loo yaqaan Eilat. waxaana ay sheegeen in ay sii wadi doonaan xuutigu in hadda kadib go'doomin xagga hawada Israa'iil ay ku soo ragaan. waynu arki doonaa wixii ku soo kordha macluumaadkaas. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashada barnaamijka. inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii si aad ula socoto wararkeenna iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino. haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir barnaamijka like saar, aragtidaadana ka dhiibo qodobadii barnaamijka aad ku soo daawatay. sidoo kale saaxiibadana barnaamijka la wadaag. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo.